kulan wanaagsan dhammaan saaxiibada naga xiran baraha bulshada barta aan ku leenahay broadcast-ka iyaga 10 minute nomadic healing broadcast waa broadcast aan ugu talagalnay inaan ku kobcino mindset-ka daayarta Soomaalida ee nagu xiran indicate waxaa jira wayadan dambe inflexible and unbreakable get in touch aan ku soo qoraynay baraha bulshada aan isticmaalno sida Twitter-ka, Instagram-ka, TikTok-ga iyo waliba Facebook-ga waanu uga dal lahayn indicate assessment aanu wadnay wayadan dambe oo assessment aan ugu talagalnay doorashadii ka dhacday wadanka dhawaan ee uu ku soo baxay xisbiga mucaaradka wadani ee lagu doortay madaxweynaha hadda jooga Dr. Abdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo magacaabisii cabinetka golaha wasiirada cusub ee uu magacaabay falcelintii ka timid indicate waan uga dan lahayn assessment-kayagan oo sida warqadan idinka muuqata indicate assessing habits of people's political thinking waxa loo yaqaan caadooyinka ama fikirka dhanka siyaasadda ee bulshadeenu ay ka qabaan arrimaha siyaasadda keyword-keenuna wuxuu noqon doonaa indicate accuracy in factual beliefs political politicians iyo waxa loo yaqaan open minded thinking and active open minded thinking oo dadku siyaabo kala duwan ay runtii uga hadlaan arrimaha siyaasadda iyagoo dadkeenu ay ku badan tahay indicate dhanka caadifada qabiilka ama waxa loo yaqaan emotionalka oo waliba dadkeenu aanay ahayn indicate emotional intelligence. There are 5 key elements aad kaga hortegi karayso waxa loo yaqaan emotionalka ama caadifada dhanka qabiilka oo ay ugu horeyso indicate self awareness inuu qofku sameeyo iyo empathy iyo waxa loo yaqaan motivation ama social skill in dadka loo sameeyo lagaga hortegi karayo waxa aan ugu magac darnay indicate dilaaga qarsoon waxa weeye caadifada dhanka qabiilka oo aad moodid wayadan dambe inay dadkeena aad ugu soo badanayso oo ay dadku xiiseynayaan dadka ka hadlaya arrimaha qabiilka iyo kala qaybinta bulshada aadna loo danaynayo topigyada la xiriira arrimaha si haddaba aan uga hortagno waxaanu samaynay assessment-kan inflexible get in touch-kii aanu samaynayna wuxuu la xiriiraa arrinta waxaan si ka raali gelinayaa cid kastoo dhibsatay oo u aragtay runtii inaanu ka leenahay dana gaara ama shakhsiyad gaara ku weerarayno arrintaas oo dhammaanteed ciddii dhibsatay aan mar labaad ka raali gelinayno waxaa muhiima runtii in dadka laga wacyigeliyo arrimaha dhanka qabyaaladda ama cunfiga reernimada oo aad moodid inay nagu soo badanayso weliba baraha bulshadu ay saameyn xoog leh nagu hayaan